ninka keligiis unukaa ka faa'iido badan meel walbaan magaciisi wanaagga iyo dhoorta iyo dhaqanka ka helnaa habkii beertu loo tacbilahay cayaantana la tababaray oo maxaa ka mid ah balkan caqabadaha ku yimaadooyo cudur badanaa yimid qaabkii wax loo daaweyn lahay ilaahay beertii tacbaysi nafteeda ina nidaamkeeda iyo waraabkeeda iyo qaabkii wax u qabalahay iyo balkii misasisintii tacbid maalintii cudurku yimaad qaabkii loo daaweyn lahay ma wanaqa amba waraabka ha noqdo amba sidii magaciisii dalqa loo daaweeyahay ha noqoto daawadaas ma naqaani dalaqaas magaciisii beeraha sidii loo beeraayo oo saas ma naqaani kabaaboy hataa sideen rabno iyo farta iyo makiinta si uu falayni ma aqaanin عارف waxaan u raadi jirnay magaalada beerta bateen ba dhaafi jirtay oo waxaan arki jirnay aan qabo jirtay in beerta caraf sababteeda ay hol qowayso iskaashatada micnaheedu waxa waaye waxa isku darsi alxamdulillah iskaashatada korba waxa ku caday sababta tuulo naftigeeda faa'iido weyn ay gaartay haddin iskaashani oo iskaashatooyinka aan nahay faa'iido weyn wax oo isla jiro amba badar amba sisin oo isla jirto aanu soo galayso ninka keligiis unukaa ka faa'iido badan ninka keligiis joog unukaa ka faa'iido badan ilaa daawooyin badan aan hadda faa'iidadooda helnay maanta tijaabo la sameeyay waa aragnay kuu bilow fidyala noo yimid dad aqoonyahana noo yimid qaabkii wax loo oo beeri lahay qaabkii wax loo daaweyn lahay xilligii wax la tabci lahay wax dhanana la sheegay si carada loo qaadayo cara ebel ma qaban anaga cara jirinayso ebel ma nugu jirin waxaynoo kordhiyeen dad kale noo soo dirina in aqoon oo sare inaynoo kordhiyeen dad markaas oo dadkii meesha jooga xataa wax u faa'iideyn karo oo dadkii naga dambeeyay wax u qaban karaan naqan